কি করছেন? ugu yaraan 22 qof ayaa ku dhimatay in ka badan 30 kalena way ku dhaawacmeen qaraxii xooggan ay maanta la beegsaday hotel Sweden magaalada Muqdisho kaasoo ka soo horjeeda xarunta madaxtooyada Soomaaliya. qarax ayaa la adeegsanayay baabuurta walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo darbiga hotelka lagu dhuftay. agaasimaha baabuurta gurmadka degdega ee Aamin ee magaalada Muqdisho Dr. Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan ayaa xaqiijiyay inay qaadeen 22 qof oo ku dhintay qaraxaas oo 6 kamid ah ahaayeen dumar 30 qof oo kalena dhaawacyo kala duwan soo gaadheen. dadkii dhintay ku dhaawacmay waxaa la geeyay isbitaal Madiina iyo Daarul Shifa. shirar kala duwan ayaa ka socda hotelka markii weerarkaasi laga beegsaday waxaana ku sugnaa mas'uuliyiinta xukuumadda iyo baarlamaanka ka tirsan qaarkoodna dhaawacyo fudud soo gaadheen. waxaa dadkaasi ka mid ahaa wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Xayin Maareeye, wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Nuur Faarax Xirsi iyo wasiir dowlaha gaashaandhigga Maxamed Cali Xaga oo xilliga qaraxa hotelka ku sugnaa. Cabdiraxmaan Ismaaciil Ducaale, Dayaxa Media.